siilaaya allahu naxariistee xukunkii waa ka tegey nin muuse la yidhahdaa yimid nin ciro la yidhahdana hadduu yimid faroole wuu tegey cabdiwelina waa tegey siciidkii koobaad baa tegey siciidkii labaadna wuu joogaa cabdikariim xuseen guuleed waa tegey xaaf waa tegey qoorqoor nin la yidhahdaa jooga cali cabdullaahi cosoble waa tegey maxamed cabdiawaar waa tegey cali guudlaaba nin la yidhahdaa jira shariif xasan teg lafta gare nin la yidhahdaa jooga xasan sheekhii hore wuu tegey farmaaja yimid oo tegey xasan sheekhii kalaa jooga waxaan leeyahay marka haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ilaan wax ma dhaantid geed ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa aamusnaan dheer kadib afka furtay oo markaan ka hadlay xaaladda hadda uu ku jiro dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha oo markan u muuqday inuu fulinayo ama uu dhaqan gelinayo ballanqaadkiisii hore ee ahaa inuu siyaasadda lafteeda uu ku janno tegi doono ayaa markan codkiisa ugu hiiliyey guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee u afduuban kooxo dallay siyaasadeed ah isla markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre si aan horay loo arag horayna loo maqal waxa uu markan codkiisa ugu hiiliyey shacabka dulman ee Jubbaland oo ahaa shacab gebi ahaanba ay iska iloobeen mas'uuliyiintii dalka Soomaaliya u kala dambeysay amase aanay kalimadda xaqa iyo runta ah ka sheegi jirin xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka socda Jubbaland dulman haddaba sideedaba sharci ahaan amase qawaaniinta bini'aadamka amase diinteena islaamka ee sharafta badan kalimadda xaqa ah oo aad ugu hiiliso dadka ama shucuubta dulman amase xaqa oo aad sheegto waxa ay ka mid tahay qaybaha ugu qiimaha badan ee jihaadka haddaba ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta khudbad muhiim ah jeediyey ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteennan oo aynu dhinacyo badan ka eegi doono khudbaddan qiimaha badan ee taariikhiga ah ee mas'uul Soomaaliyeed uu markan codkiisa si buuxda ugu taageero guud ahaan shacabka dulman ee Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka sii dulman ee Jubbaland haddaba inta aynaan u gudagelin faallada iyo falanqaynta khudbaddii maanta uu jeediyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee uu kaga warramayey guud ahaan xaaladda dalka iyo gaar ahaan Jubbaland dulman waxa aynu marka hore arar uga dhiganaynaa waa kuma ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre muxuuse kaga duwan yahay ra'iisul wasaareyaashii iyo mas'uuliyiintii hore ee Soomaaliya ee xukunka soo qabtay dabcan markan ujeedada ararteenu ma aha marka aan leenahay waa kuma ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inaan taariikh nololeedkiisa shakhsiga ah ka hadallo sida ay kelimadan u adeegsadaan qaybo badan oo warbaahinta balse tan waxa kaliya oo aan uga dan leenahay inaan tilmaano hal sifo ama laba sifo oo markaan mawduuceennan saameyn ku leh isla markaana aan ku tilmaami karno ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre run ahaantii inta laga og yahay shakhsiyadiisa aragtidiisa siyaasadeed waa ra'iisul wasaare
la isku raacsan yahay ugu yaraan inuu daacad u yahay mas-uulkii isaga soo magacaabay oo ah madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud. tilmaantan aynu si gaar ah u siinayno waxaynu uga soo xulanay tilmaamaha ra'iisul wasaaraha. waa lagu kala duwanaan karaa waxqabadka ra'iisul wasaaraha, waxqabad la'aantiisa, gaabisnimadiisa, inuu mas-uuliyaddiisii gutay, in xilkii loo dhaariyey uu markaasi dhaartii ka soo baxay iyo ammaanadii, inuu ku fashilmay, inuu guula gaaray, inuu guul daraystay. arrimahaasi waa arrimo u baahan faallo iyo falanqayn lagu kala duwanaan karo. balse qodobkan aan soo qaadanay ee ah waa ra'iisul wasaarihii ugu daacadsanaa madaxweynihii isaga soo magacaabay ayaa ah qodob muttafaqun calayh, qodob la isku waafaqsan yahay. dadka ra'iisul wasaaraha taageersan ee u jibbaysan taageeradiisa, dadka heerka dhexe ah iyo kuwa ra'iisul wasaaraha si xooggan uga soo horjeeda. haddaynu tusaale u soo qaadanno dadka taageersan, ayagu waabay la dhacsanaayeen ra'iisul wasaare xamse cabdi barre, oo waxa iyagu tilmaamaha ra'iisul wasaaraha ay ku darsanayaan inuu yahay ra'iisul wasaarihii xukuumadda dan qaran, inuu dalkan guulo waaweyn gaadhsiiyey. balse waxaa soo jiidasho mudan in dadka heerka dhexe taagan laftoodu ay aaminsan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo xulashadiisii uu xamse cabdi barre u xushay inuu ra'iisul wasaare daacad ah u noqdo inay tahay guusha keliya ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaadhay inta uu xilka hayay, ama la odhan karaba wax ayuu ka soo bartay khibraddiisii hore ee madaxweynenimo. waxaa iyadana ka sii xiiso badan dadka ra'iisul wasaare xamse ka soo horjeeda oo markaan iyaga laga filayey, iyaga oo og daacadnimada uu xamse u yahay madaxweynihiisa, inay daboolaan, inay ka warwareegaan. intaasina aanay dhicin oo shakhsiyadaha ugu macquulsan dadka ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ka soo horjeeda ay horay isugu dhaceen wakhtigii hore ee muddaxileedkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay siyaasadda ku kala duwanaayeen, oo aynu ka xusi karno maskaxdii ama mulkiilihii dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa Fahad Yaasiin, in laftiisu uu qiray ra'iisul wasaare xamse cabdi barre qofka uu yahay inuu yahay shakhsi daacad ah oo u daacad ah madaxweynihiisa. sideedabana qofka tusaalaha ugu wanaagsan ee habdhaqankiisa laga qaadan karo waxaa ka mid a qofka adiga kaa horjeeda libinta uu kuu qiro ee aanu markaasi indhaha ka jeedin karin. haddaba taliyihii hore nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaaba taas u qiray oo shahaadada daacadnimada ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu madaxweynihiisa u yahay qirtay, markaana isbarbar dhigay isaga wakhtigii uu dowladdii hore ee Soomaaliya mulkiilaha ama la taliyaha ka ahaa ee madaxweynaha Soomaaliya wakhtigaas ee saaxiibkii ahaa inayna nasiib darro ku guulaysan inay helaan ra'iisul wasaare la mid ah xamse cabdi barre. haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ahaa oo uu rikoorka taariikhda jebiyey, haddana ay si cad u muuqata in uu yahay ra'iisul wasaarihii ugu daacadsanaa madaxweynihii isaga soo magacaabay. dabcan muddo 2 sano iyo badh ka badan ayaa ay soo wada shaqaynayeen madaxweynihiisa. taasi waxay daliil cad u noqotay daacadnimada ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu u yahay madaxweynihiisa, samirka iyo dulqaadka uu muujiyey dowladda federaalka Soomaaliya ee uu ka tirsan yahay. taas oo iyadana daliil u ah in xitaa marka la fiiriyo culaysyada saaran ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ay qaarkood ku xambaari lahaayeen haddii aanu madaxweynihiisa daacad u ahayn, awoodo gaar ah uu leeyahay inuu isticmaalo, dhinacyo kale inuu xiriir la sameeyo, ugu yaraan xoogaa gorgortan ah muujiyo mararka qaarkood.
balse intaasi midna ma dhicin. aynu ku laabanay dadka si xooggan iyagu uga soo horjeeda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyagu marnaba aan jeclayn in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu xilkan qabto oo dhimasho iyo geeri ka xig ayaa laftooda iyaga oo ku liidaya daacadnimada u dhaganuglaanta mas-uulkii soo magacaabay isaga waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mas-uuliyiinta dhagaha adag qaarkood qariska tuurka yihiin ee xukuumaddiisa ka tirsan, mulkiilayaasha dhaqdhaqaaqa badan ee isaga mararka qaarkood ka xigsada madaxtooyada filla Soomaaliya, intaas oo dhan dulqaadka uu u sameeyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. taas waxay ku kaliftay shakhsiyaadkaas cadowtinimadu ka dhaxayso siyaasadeed Xamse Cabdi Barre inay ku tilmaamaan amase magacyo kala duwan ay u bixiyaan sida marxuumka, xoghayaha iyo wixii la mid ah. balse intan oo dhan ma aha in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ahaa mas-uulkii ugu kartida badnaa, ugu waxqabadka badnaa, mas-uuliyadda loo dhiibay waajibaadkeeda u gutay. intaas inuu yahay ujeeddada macnaheedu ma aha. taas sidaynu hore u sheegnay waa doodo kale oo uu kala mid yahay qiimaynta mas-uuliyiintii xilkan soo qabatay oo badankooduba aan sifooyinkaas wanaagsan lahayn, islamarkaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre aanu waxba kaga duwanaan karin saaxiibadiisii hore marka loo eego gudashada xilkiisa iyo waajibaadkiisa arna ee dhinaca shacabka Soomaaliyeed. balse dhinaca kale haddaynu iyadana wax yar ka joogsan, dadka siyaasadda u dhuundaloola waxa ay aaminsan yihiin haddiiba ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu heli lahaa madaxweyne ama madaxtooyo sidiisa oo kale daacad ah, dalka jihada toosan ku hagaysa, inuu isaguna noqon lahaa ra'iisul wasaare daacadnimadiisa, waxqabadkiisa, wadaniyadiisu intan ay ka fiican tahay, oo isaga oo daacad ah daacadnimada uu mas-uuliyiinta ama mas-uulkii soo magacaabay u yahay oo dalkiisa daacad u ah isaguna ay wax badan dalkan ku soo kordhin lahay. waxa ay khubarada siyaasadeed aaminsan yihiin halka waxqabadka iyo kartida iyo awoodaha uu daacadnimo intan badan uu ka heli lahaa ama ka shidaal qaadan lahaa, balse hadda uuna Xamse haysanin inay tahay isla madaxtooyada iyo madaxweynihiisa mudane xasan sheekh maxamuud oo run ahaantii ka hoos maray halkii ay shacabka Soomaaliyeed ay ka filayeen. madaxweynahan waayo aragga ahaa, fog adaaga ahaa, odayga Soomaaliyeed ahaa, balse intaas oo dhan aan waxba laga faa'iidin, isaguna run ahaantii ku saaqiday oo aan hadda waxba aan shacabka Soomaaliyeed ka mahadin doonin. inta hadda uu xilka hay inta aan la gaarin waa xisaab kale. dhinaca kale waxaa lagu tilmaamaa daacadnimada ra'iisul wasaaraha uu madaxtooyadiisa daacadda u ahaa inuu daacadnimo kale oo dalkiisa iyo shacabkiisa u sii ahaado inay caqabad ku ahayd isla gudaha xukuumaddiisa dan qaran oo ay ku jiraanba dad fara badan, qaarkood qaa'in wadaniyiin yihiin, qaarkood ay dhagarihii dalka ka dhacay xasuuqyadii qayb ka yihiin, qaarkood danaystayaal dhaqaale iska yihiin, qaarkood qariska tuurayaal xafiiska ay ka shaqeeyaan aan aqoonin waxa uu yahay, balse xafiisyo kale afkooda ku hadla. xukuumad aad u dhib badan inuu hogaamiyo ayaa ay khubarada qaar markaasi ra'iisul wasaaraha ugu qildayaan in haddii kuwaas kuwa ka fiican uu heli lahaa waxqabadkiisa, daacadnimada dalkiisa iyo dadkiisa uu yahay inay ka sii badnaan lahay. intaas haddaynu kaga gudubno aragtii ku saabsanayd waa kuma ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, waxaynu ka jawaabaynaa su-aasha labaad ee iyaduna ahayd muxuu kaga duwan yahay ra'iisul wasaareyaashii hore, madaxdii hore ee dalka soo xukuntay. dabcan wax badan kagama duwana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaareyaashii isaga ka horreeyey, waxqabadka, wadaninimada, xilgudashadiisa si guud waa isku mid. dalkan Soomaaliya ma soo marin ra'iisul wasaare
xukuumaddiisa fulintu shaqayso awoodaha shacabku u idmadeen guta iska fogeeya madaxtooyada filla Soomaaliya golaha shacabka iyo hay'adaha dastuuriga amaba jiraan waxa weeye oo kala siman yahay saaxiibadiisii hore ee ku dhex milmay madaxtooyada warqadda amarka madaxtooyada laga siiyo xukuumaddiisa dan qaran waxay la mid tahay kuwii hore ee ku dhex milansanaa golaha shacabka iyagu geysan jiray markaasi sharciyada ama sharciyadooda kana soo ansixisan jiray isku milan baarlamaan iyo xukuumad musuqmaasuq wax isdabamarin weliba xukuumaddiisu waxayba sii dheer tahay kuwa aan iyagu geynba xilka ay hadda qaranka Soomaaliyeed u hayaan haddaba taasina waa wax kala siman yahay saaxiibadiisii hore ama uuba baradheeraan karo dhinaca gaabisnimada balse waxaa jira sifo wanaagsan oo kaga duwan yahay saaxiibadiisii hore oo ah inuu yahay ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee kelimadda xaqa ah ku jihaada codkiisa ku taageera shucuub dulman oo aanay madaxda Soomaalida Afrikaanka Carabta Islaamka iyo caalamkuba aanay gaarin wax kuwa tiro yar mooyaane inay codkooda ku taageeraan shacab dulman waxaynu ognahay rikoorka koowaad ee horay uu u jabiyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre shacabka Soomaaliyeed shucuubta Afrikaanka ah shucuubta Carabta shucuubta muslimiinta ah shucuubta adduunka saddexaad shucuubta dowladaha horumaray siyaasiyiinta dhammaan ay ku taageereen oo ahayd kelimadii ama hadalkii uu jeediyey ee uu ku taageeray shucuubta dulman ee reer Falastiin halganka ay ku jiraan ururadooda siyaasadooda iyo guud ahaan qadiyadooda iyo sida aanay cadaalad u helin taas waxaan ognahay inay madax badan oo caalamku soo dhaweeyeen kuwa badan aanay jeclaysan balse ay isaga u noqotay madax isaga ka tayo sarreysa ka awood badan inayna awoodin inay sidaas oo kale u taageeraan shucuub dulman oo xasuuq ku socdo oo aaya ka tarintooda u halgamaya taas waxay ahayd tallaabo uu sharaf iyo magac ku mutay dhinaca kalena culays iyo diblomaasiyadeed ay ka soo gaadhay dhinaca kale ayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu kaga duwanaa mas'uuliyiintii hore dhinaca arrimaha Soomaaliya gudaheeda inuu hadda noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ugu codkarsanaa farta markan ku fiiqay qaar ka tirsan ama si aan idhaahdayba guud ahaan kooxaha danleyda siyaasadeeda ee masiirka shacabku u afduuban yihiin kuwa ay yihiin aan ka leexleexan kuwaasi haddii ay yihiin kuwa isaga ugu dhow ee ay xulufada ahaayeen iyo kuwa markaasi kale ee iyagana ka mid ah madaxda iyo siyaasiyiinta masiirka shacabku u afduuban yahay kuwa iyagu xoogaa tallaabo horumar ah sameeyey uu codkiisa ku taageeray kuwa heerka dhexe uu sheegay macnaha mas-uul Soomaaliyeed oo ku soo dhowaada inuu sidaas u hadlo dareenka qulubta shacabkiisa hadalla geli kara uu sheego xaqiiqada jirta iyo halka sartu ka qurunsan tahay farta ku fiiqa run ahaantii ma dhicin ra'iisul wasaare sidan oo kale u qeexa oo u soo bandhiga dabcan taasina macnaheedu iyadana ma aha inaanay ra'iisul wasaareyaashii hore madaxdii hore ee dalka aanay ka hadli jirin aanay codad iyo arrimo muhiima sheegi jirin balse si kastaba oo madaxda Soomaaliyeed ee ka horreysay ay u hadlaan uma ay suurtagelin inay codkooda dheer gaarsiiyaan halka uu Xamse gaarsiiyey amase uu si cad farta ugu fiiqay ama ha kaga gaabiyaan madaxdaasi hore dana siyaasadeed oo waqtiga xilka ay hayeen ama ha kaga gaabiyaan aqoon la'aan dabcan gaabis baa ka jiray ay madaxdaasi xaqiiqooyin badan kaga warwareegi jireen balse hadda uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hadalkiisan ugu dambeeyay ee uu afka ku furtay aamusnaan dheer kadib aanu ka leexleexan dhinacyada caqabada ku ah lugaha ku dhegan masiirka shacabka Soomaaliyeed kuwa ay yihiin haddaba haddii aynu u guda galno
وأينو افتيمينو خطبة رئيس الوزراء حمزة عبد برre waxa uu guuleystay oo kaga duwanaa siyaasiyiintii hore iyo madaxdii hore hadaladoodii in markaan ra'iisul wasaaruhu uu abaaray shabakada isku xidhan ee caqabada koowaad ku ah masiirka shacabka Soomaaliyeed ee dulman iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed ee maamul goboleedka Jubbaland dabcan madaxda hore mar walba waxay ka hadli jireen si guud dad doorasho hortaagan kuwa doorasho diidan kuwa masiir iyo qodobo dastuur la isku diidan yahay laakiin markaan xukuumaddiisa oo qaar badan oo qariskatuuri ku jiraan waxay iska weerari jireen kolba dhinacii dowladda ay isqabtaan wasiirka arrimaha dibadda ma kala aqoonin siyaasadiisa dibadda iyo gudaha wasiirka gaashaandhigga dagaal wuxuu iskaga jiray fadhi ku dirira wasaaradda gaashaandhigga baan ahayn wasiirkii diinta iyo awqaafta oo isaguba markii horeba ahaa kooxihii argagixisada isagana shaqooyinkiisa shaqooyin kaloon ahayn buu iskaga jiray qaar badan oo xukuumadda ka mid ah saasay iska ahaayeen madaxtooyadu waxa ay kolba dadka u jahayn jirtay ku jahawareerin jirtay qodobo badan balse marnaba dowladihii hore iyo dowladda hadda xilka haysa ma ayna abaarin shabakada caqabada ku ah masiirka shacabka Soomaaliyeed iyo masiirka shacabka Jubbaland shabakadaasi halka ay ka shidaal qaadato khudbadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ayaa taas dowladeedu ahaa ay u badnayd ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay in shabakadaasi run ahaantii uu isku xidho hogaamiyaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay isku kulansaday laba arrimood inuu masiirka shacabka Soomaaliyeed lugaha ku dheganaado oo isagu uu noqdo hogaamiyaha ruuxiga ah ee kooxaha isbahaysiga ah ee shacabku afduuban yahay ee doonaya dalku inuu ku sii jiro doorasho dadban iyo kala qoqobnaan taas ayaa ra'iisul wasaaruhu maanta khudbadiisa uu si fiican ugu iftiimiyey waxa uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland ee waqtigiisu dhamaaday uu ka mid ahaa madashii golaha wada tashiga qaranka ay arrimahan ka wada hadleen ka wada heshiiyeen uu dhammaan heshiisyadii isagu kaga baxay wuxuu sheegay xitaa heshiisyo gaar ah oo ka ra'iisul wasaare ahaan oo loo tirinayay inuu isaga laftiisu gacan yarayaashii Axmed Maxamed Islaam ka mid ahaa uu ballamahaas geedi socodka dib u dhiska dalka uu kaga baxay wuxuu sheegay in ugu dambeyntii ballamahaas uu ka baxay sababaha uga baxayna ay ahayd inuu hogaamiye isbahaysigiisii doorasho dadban doonka ah ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam oo masiirka shacabka Soomaaliyeed lugaha ku dhig dhammaan markii uu ballamahaas ka baxay uu dowladda federaalka Soomaaliya madashii golaha wada tashiga qaranka ra'iisul wasaaraha oo isaga ay isku xurufo ahaayeen wuxuu sheegay inuu qiil ka dhigtay in ay dad ka maqan yihiin oo loo baahan yahay in la keeno ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo qaatay marka qodob muhiim ah oo aad moodo inuu miisaanka cadaaladda u adeegsaday tusaale ahaan markan wuxuu isku xidhay sida hogaamiye Axmed Maxamed Islaam uu dhinacna lugaha ugu dhagan yahay masiirka shacabka Soomaaliyeed dhinacna uu afduubtay masiirkii shacabka dulman ee Puntland ee Jubbaland aan idhaahday markan wuxuu tusaale u soo qaatay ugu yaraan haddii ay daacad ka tahay soo bandhigistiisa in shirku intan ka guda ballaarnaado in isagu hogaamiye shaqo soo qabtay shaqo kale oo qaran in la ballaariyo taladiisa ku darsanaya uu yahay waxa uu markaan tooshka ku iftiimiyey ra'iisul wasaaruhu Axmed shacabkii isaga u afduubnaa halka uu markaas ku soo ogaaday sanduuqa uu ku soo xidhay ayuu iftiimiyey wuxuu sheegay tusaale ahaan oo hoosta ka xariiqi haddii dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka mar horeba shirkan qaybta ka ahayn Puntland ay ka baxeen wuxuu ku amaanay in iyagu ay uga hordhaceen qorshaha iyo tallaabooyinka doorasho qof iyo cod wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo madashii golaha wada tashiga qaranku ay ku heshiiyeen inay balhigsigooda ugu yaraan gaaraan ama shacabka gaarsiiyaan
maamulada jihada toosan iyo shacabkoodu inay qof iyo cod helaan ku guulaystay. wuxuu sheegay Axmed isagoo halkaaba gaarin shacabkiisii afduubtay inta isagoo xilka uu hayay ay madax fara badan iyo isbedello badani ka dhaceen maamul goboleedada dalka oo uu tusaale u soo qaatay isbedeladii doorashooyinkii ka dhacay ee isxigxigay ee qof iyo codka ahaa Somaliland laga soo bilaabo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo iyo ilaa iyo hadda doorashadan 13 Noofembar oo ay isku bedbedeleen dhammaan madaxweynayaasha Axmed Maxamed Siilaayo Muuse Biixi Cabdi doorashadan kale dhowr doorasho oo laba mutaxileeda isbedelada ka dhacay Puntland ay dhowr madaxweyne isku bedeleen isbedelada ka dhacay Galmudug ay dhowr madaxweyne isku bedeleen haba iska ahaato doorasho dadban isbedelada ka dhacay Hirshabelle dhowr madaxweyne isku bedeleen ayuu tusaale u soo qaatay. wuxuu markan ra'iisul wasaaruhu isbarbar dhigay hadiiba shaqooyinkaasi uu soo qabanin Axmed oo Jubbaland isaga ayuu afduubnayd inuu haddana ku darsaday si uu taas u sii adkaysto inuu masiirka shacabka Soomaaliyeedna lugaha ku dheganaado dalku inuu halkaasii joogo doorasho dadban iyo xulasho uu iska sii ahaado. wuxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu taas inay iyagu ka diideen inay u socdaan inay higsadaan isla shucuubta kale ee Soomaaliyeed oo ay hayaankooda dawladdu gaarsiiso oo uu markaan uu ra'iisul wasaaruhu helay geesinimo uu ku taageero shucuubta Puntland doorashooyinkii ay galeen ay bilaabeen ay higsanayaan dhamaystirkooda. wuxuu taageeray doorashada qof iyo codka sida nabadgelyada u dhacday Somaliland markan uu ku dheeraaday mahadcelin fara badan ayaa uu markaan Somaliland iyo ammaan ayuu ra'iisul wasaaruhu kala dul dhacay. tan waa mid laga waayay wasiirkiisii arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqih ee qariska Tuurka ah. wasiirka isagoo arrimaha dibadda haya shaqadiisii arrimaha dibadda gabay inta badan ku mashquulsan shaqada wasaaradda arrimaha gudaha madasha wada tashiga qaranka loolanka u dhaxeeya khilaafka dawladaha iyo maamul goboleedada u dhaxeeya difaaca afhayeennimada filla Soomaaliya iyo shaqooyin isaga aaban loo dirsan. balse markaan ay maanta khudbadda ra'iisul wasaaraha ka muuqatay in aanu ka leexleexan waaqiciyo fara badan inuu hoosta ka taageeray doorashada Puntland dadku inay isdiiwaan geliyaan heer fiican soo gaaraan. Axmed Madoobe uu ku dhaliilay isla markaasina uu sheegay in isaga uu u afduuban tahay Jubbaland oo nasiib darro ah oo Jubbaland maanta ay dulman tahay. haddaba tan marka laga fiiriyo waatii aynu horey uga hadalnay xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre hogaamiyo waxay u muuqataa inuu isagu kaga fiicnaan lahaa inuu afhayeenno u noqdo wasaaradaha gaabiska ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo qaybo kale. dhinaca kale ra'iisul wasaaruhu isaga oo markaan si cad uga hadlaya sida Jubbaland iyo shacabkeeda iyo ciidankeeda iyo guud ahaan ay ugu afduuban tahay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam ay Jubbaland ugu jirto jeel weyn oo markaasi dusha ka furan ayaa waxa ra'iisul wasaaruhu uu markaan ka hadlay xogo qarsoon oo aan la ogeyn loolan iyo khilaaf iyo muran hoose oo u dhaxayn jiray dawladda federaalka Soomaaliya iyo waqtigii ay isku xulufada ahaayeen madaxweynaha Jubbaland ee madaxweynaadkiisu hadda uu dhamaaday mudane Axmed Maxamed Islaam. wuxuu sheegay markii ay wada shaqayntu ka dhaxaysay lafteeda in Axmed Maxamed Islaam uu caqabad ku noqday in dawladda federaalku la shaqayso in dawladda federaalku ay dib u dhis ku samayso ciidamada xoogga dalka ay dalacsiiyaan ciidamada maamulka Jubbaland ay sharciyeeyaan ay wada shaqayn yeeshaan dhammaan arrimahaas oo sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay uu mar walba ka ilaalin jiray si aan xabsigan dusha ka furan aanay dawladda federaalku ugu soo dhawaan. wuxuu sheegay inuu diiday dalacsiino badan oo ay dawladda federaalku ugu tala gashay ciidamada daraawiishta ee Jubbaland abaalmarino kala duwan in dawladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay awoodooda iyo tayadooda iyo fariisimadooda Jubbaland ay kordhiso inuu caqabadba ku ahaa dagaalkii lagula jiray argagixisada ee lagaga xoreynay taas oo horeyba u muuqatay. dad badan ayaa su'aal iska weydiin jiray
muxuu yahay howlgalka ka socda ee lagula dagaalamayo argagixisada ee ay ka midaysan yihiin ciidanka xoogga dalka, dowladda federaalka iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland. Gaabisnimadii iyo caqabadihii markaas jiray oo qarsoonaa balse hadda uu ra'iisul wasaaruhu fashiliyey ayuu sheegay dhammaantood inuu sabab u ahaa iskaashi la'aanta iyo afduubka uu ka hortaagnaa inay xuquuqdooda helaan ciidamada geesiyaasha ah ee Jubbaland ee daraawiishta oo uu si xad dhaaf ah u ammaanay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, balse uu sheegay in iyaga laftoodu ay qayb ka yihiin afduubka uu hogaamiye Axmed Madoobe afduubtay guud ahaan shacabka Jubbaland, ciidanka, odayaasha iyo dhammaanba shucuubta Jubbaland. Ra'iisul wasaaruhu khudbadiisa wuxuu ku xusay in khilaafka hadda ka dhex qarxay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam iyo dowladda federaalka Soomaaliya uu salka ku hayo kadib markii uu hogaamiye Axmed Maxamed Islaam uu afduubtay masiirkii shacabka Jubbaland ee dulman, inuu haddana ku darsaday oo u bareeray inuu lugaha ka dhigo masiirka guud ee shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo markaan go'aansatay inay dalka u jihayso doorasho qof iyo cod ah. Haddaba ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in taasi markii Axmed Madoobe ay hordhigeen ama se uu ogaaday inay khatar ku tahay uu bilaabay xeeladihiisii guracnaa oo ahaa inuu shacabka isaga u afduuban ku maaweeliyo in duulaan lagu yahay, in dhulkooda la qabsanayo iyo arrimihii markaasi uu isagu u adeegsan jiray isagoo tusaale u soo qaatay qisadii dhex martay Fircoon iyo xulufadiisii iyo Nebi Muuse oo markaan ujeeddada ra'iisul wasaaruhu ay ahayd in iyagu amase xukuumadda dan qaran hadda hadafka ay u socotaa uu yahay in shacabka Jubbaland ee dulman iyo shucuubta Soomaaliyeedba laga saaro afduubka ay ku jiraan ee doorasho dadban, dadkuna shucuubtu ay iyagu codkooda ku soo doortaan cidda ay rabaan. Run ahaantii ra'iisul wasaaraha hadalladan uu jeediyey oo aad u qiimo badan, haddana marka loo fiiriyo qowl ahaan iyo dhinaca kelimadda xaqa waa tallaabooyin lagu diirsan karo, balse waxay u baahan yihiin dhaqangelin dhab ah oo ay shacabku indhaha ku hayaan. Waxay u baahan yihiin shacabka dulman ee Jubbaland afduubka uu ra'iisul wasaaruhu sheegay oo xaqiiqa iyo run biyo kama dhibcaan ah. Maanta mas'uulka awoodda u leh inuu shacabkiisa isagu uu deegaan ahaan ka soo jeedo inuu ka badbaadiyo inuu yahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Haddii marka ra'iisul wasaaruhu uu noqday ra'iisul wasaare codkiisa ku taageeray shacabka Jubbaland ee dulman, mar kale waxaa looga fadhiyaa ficilkiisa, awooddiisa, maskaxdiisa, awoodda dowladda isagu uu ka tirsan yahay, xukuumadda dan qaran, inuu u adeegsado in shacabkaasi dulman uu ka dulqaado heeryada afduubka, ficil ahaan uu ku fuliyo codkiisa uu ku taageeray shacabka dulman. taas ayaa waxay noqon kartaa amase ay tahayba markaas haddii ra'iisul wasaaruhu uu jidkaas qaado inuu run ahaantii sidaynu hore u sheegnay uu si dhab ah ra'iisul wasaaruhu ugu janno tegi doono siyaasadda oo macnaheedu yahay haddii shacab dulman aad codkaaga ku taageertid, ficilkaagana ku taageertid oo afduubka iyo munkarka jira aad ku suulisid, inaad markan qayb ka noqotay dadka qaybta ka ah inay heleen sifooyinka lagu janno tago oo ay koob ka tahay xaqa oo la taageero iyo kelimadda xaqa ah oo markaasi lagu dhawaaqo ficil ahaana lagu fuliyo inta awoodda. Haddaba taan ayaa looga fadhiyaa ra'iisul wasaaraha. haddii ra'iisul wasaaraha xukuumaddiisa dan qaran dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dhabeeyaan inay markaan shacabkan dulman ee Jubbaland
ay ka dulqaadaan heeryada afduubka hogaamiye Axmed Maxamed Islaam ay sida ay dawladdu sheegtay oo iyadaba ay su'aalo badan ka taagan yihiin dalka inay doorasho qof iyo cod ah ka qabanayaan iyadana ay ficil ahaan ku dhaqan geliya ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ee xilka haysa iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta codkiisa ku taageeray shacabka dulman ee Jubbaland iyo guud ahaan shacabka dulman ee iyagana masiirkoodu u afduuban yahay danley siyaasadeed shabakad isbarkatay uu markaasi hogaamiyaha ruuxiga ah Axmed Maxamed Islaam oo dhowaan soo muuqan doonta ay markan ku guulaysato dawladdu waxay noqon doontaa tallaabo taariikhi ah haddiise codkan hadda ra'iisul wasaaruhu ku taageeray shacabka dulman ee Jubbaland iyo shucuubta Soomaaliyeed ay markaa noqoto qowda maqashii waxna ha u qaban aan aragno isla dawladdan oo shalay kuwii iyagu ay masiirka shacabka lugaha u qabteen haddana waan iyo wadahadal la garay kuwii oo iyaga oo afduuban markaasi loo kaxeeyey dhinacaas iyo teendhada taasina waxay noqon doontaa guuldarro iyo dib u dhac mar kale shacabka la soo gudboonaaday iyo inay afduubkii ku sii jiri doonaan balse wax kasta waxay ku xidhnaan doonaan amase markan looga fadhiyaa inay dawladdii federaalka Soomaaliya inta uga harsan mutaxileedkeeda ay culayskeeda saarto badbaadada shucuubta dulman ee iyaguba hadda ay dawladdu sheegeen ama ra'iisul wasaaruhu uu si cad u dul joogsaday dawladda markan waxaa looga baahan yahay inay ka gudubto dagaaladii iyadu ay iskaga furtay jihooyinka badan loolanada macno darrada ah ee aan wadaniyadda ku salaysnayn dhammaan siyaasadahaas inay iska soo xidho oo ay culayska markan saaraan sidii shacabkan looga badbaadin lahaa danleyda siyaasadeed ee shacabku u afduuban yahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu hoosta ka xariiqay in ay jirto amase uu jiro shirqool loo maleegayo xukuumaddiisa dan qaran in xukunka laga tuuro oo uu sheegay inuu hogaaminayo hogaamiye Axmed Maxamed Islaam iyo kooxdiisan uu masiirka shacabku u afduuban yahay waxaana xusid mudan in hore warbixinadeennii hore aynu halkan uga sheegnay in kooxahan oo markan uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam ay qayb ka yihiin maamul goboleedka Puntland oo horeyba uga soo horjeeday ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isla markaasina ka mamnuucay in deegaankaasi uu booqasho ku tago waxa kale oo markan qayb ka ah sidii ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukunka looga tuuri lahaa kooxo ka tirsan badbaado qaran oo markan iyaguna ay isku xulfo yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland iyaga oo kooxahani dhammaantood wada ololeynaya amase sheegayba inaan waqtigan ayna doorasho qof iyo codii dalka ka dhici karin in loo baahan yahay in doorashadii hore dib loogu laabto maamul goboleedadu doorasho dadbar iska qabsadaan teennadii la tago dhammaan kooxahan danleyda siyaasadeeda sida ra'iisul wasaaruhu sheegayba ka midaysan afduubka markan shabakadaasi uu isku xidho sida ra'iisul wasaaruhu khudbadiisa hoosta ka xariiqay hogaamiye Axmed Maxamed Islaam oo u ololeynaya inuu dhinacna masiirka shacabka lugaha ku dheganaado Soomaaliyeed guud ahaan dhinacna ay u sii afduubnaato Jubbalanta dulman